طلب وهرين وسير بحيانك وسارتها جاديك يهر مركز جيدك أجاسمها جود وسارتها هر مركز رجلية فرص عبد قبلك كدومي بحيانك قبلك أهنا تسمها فرص عبد قبلك ما يرتا دقمده أولوينه xildhibaanada golaha deegaanka taliyaha qaybta oodweyne saraakiisha kale ciidamada ardayda iyo mas'uuliyiinta kale isu duwayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaynu ku sugannahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin innagoo nabad qabnaa ayaynu joognaa maanta magaaladii madaxdii gobolka daadmareed magaalada oodweyne marka koowaad waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacbi weynaha jamhuuriyadda somalilan meel kastoo ay adduunka daafihiisa kaga nool yihiin waxaan anigoo uga hambalyaynayaa munaasabadda sanad guurada 12aad ee 18 May meel kastoo ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan si gaar ah u hambalyaynayaa shacbi weynaha gobolka daadmareed gaar ahaan shacbi weynaha magaalada oodweyne ee maanta sida quruxda badan runtii isugu soo baxay ee ilaa xalay damaashaadayay xafladda quruxda badanna maanta soo yagleelay sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan maanta qolana ay farxadda gobolada somalilan oo dhan ay la qaybsanayaan shacbigooda iyagoo maraya goobaha loogu talagalay qolana qoriga gacanta ku sita ee maanta ku dagaalamaya gobolka sool waan hambalyaynayaa iyaga iyo carruurahooda dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay sanadkiisa inuu gaadhsiiyo nabadgelyo barwaaqo iyo horumar insha Allah marka waxaan u mahad celinayaa gudida qabanqaabada degmada oodweyne oo runtii xafladan iyo madashan quruxda badan diyaarisay meeshan anigoo markii labaad halkan soo istaago markii horena waxay markii ciyaartay gobolka daadmareed ay koobka soo qaadeen gobolada Somaliland meeshan waa meel runtii aad u qurux badan bay sameeyeen oo ka qurux badan ba meelihii kale lagu qaban jiray waxa kale oo hambalyeynaya haweenka degmada oodweyne ama gobolka daadmareed oo runtii si qurux badan hawshan quruxdeeda haddii aanay haweenku sameyn maanta sidaa umay qurux badnaateen waxaan kaloo mahad celiyaa maayarka degmada gudoomiye ku-xigeenka ahna gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha oo runtii haddii gudoomiyaha iyo tiimkiisu aanay hawshan qaban aanay socoteen dhammaan cid kasta oo ka soo qayb qaadatay munaasabaddan waan u hambalyaynayaa haddii aynu ka sheekeyno waqti badan bay qaadanaysaa Soomaaliland taariikhdeedu laga soo bilaabo 60kii ilaa maanta taariikh badan ayuu dalkani leeyahay laakiin markaynu eegno Soomaaliland 60kii markii ay ku biirtay Soomaaliya dawladdii la odhan jiray Soomaaliya markaynu isku tagnay la odhan jiray Republic of Somalia ama Jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaalida haddii taariikhda la eego waxa ka badan maanta 30 sano ay ahayd waxa ka badan intay Soomaaliland jirtay oo 12 sano maanta ah maadaama mar haddii ay ka badan tahay midowgii mar haddii ay ka badan tahay maanta intaynu kala maqannahay waxa muhiimadu noqonaysaa in kala maqnaanshaha guushana waxay noqonaysaa in Soomaaliland dhawaan insha Allah adduunku ictiraafo maanta inaga ixtiraafsan adduunku baynu uga baahannahay taasna way iman doontaa haddii la yiraahdo shacbiga Soomaaliland marxalado badan bay soo mareen anigu waxaan ahaa horta waxa halkay la joogay wasiir ku-xigeenka Naasir Caydido isagu jabhadii ahaa raggii dalka dhigooda u soo daadiyay wuxuu ii sheegay taariikhdii uu SNM uu halganka ku biiray wuxuu ii sheegay 84kii in walaalkii labadiisii adeer iyo laba nin oo ilma adeer rumay yihiin maalintii ay dhinteen uu isna qoriga qaatay Naasir waqtiga uga sheekeynaya aniga waxay ahayd unte taariikh
sidii igu dacaydayay wuxuu yidhi war taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan aan ka sheekeynayo unbay malaha u aragtaa buu yidhi taasi waa taariikh laakiin saana waxaan ka taariikh badanahay dhalinyartii maalintii dalka aan soo galnay waxaan ahaa dhalinyartii iskuulada lagu bilaabay waxaan ahaa dhalinyartii waddanka oo bambadu taalo runtii dhigiisii ama khayrkii qaar badan ay ku ladeen oo ay ku dhinteen oo ay ku naafoobeen miinooyinkii waddanka markaan soo galnay waxaanu ahayn dhalinyartii aan u helin jaanisyo badan wakhtigaas hadday noqoto noloshan iminka aynu haysanno aanu haysan waddanku markii la soo galay guryaha oo burbursan noloshii oon cidi shaqaynayn oo shaqo meel laga shaqeeya aanay jirin waxbarashada maanta laydharhka iyo quruxda aynu wada joogno annagu waxaanu wax ku baranay faynuus inaanu faynuus wax ku akhrino marka alxamdulilah baa maanta maraysaan dhalinyarta Somaliland dhalinyarta reer Daadmareerna waxaan leeyahay raggan gobolka Daadmareer wuxuu ka mid yahay gobolladii haldoorka u ahaa halgankii dib u xoreynta dalka lagu xoreeyay mujaahidiintii runtii haldoorka ahaydna waa ka dhalatay shacbiga reer Daadmareer waxaan leeyahay maanta diyaar ma u nahay inaynu dalka cadowga ka difaacno diyaar ma nahay inaynu dalka cid kasta oo soo weerarta ka difaacno diyaar ma nahay Somaliland ha guulaysato guul wassalaamu calaykum.